إحصائياتكii u dambeeyay ee ay sameeyeen cilmi-baaristii u dambeeyay ay sameeyeen waxay ahayd dowladda India inay number 1 tahay adduunka waxay yiraahdeen toddobaadkii waxay akhridaa qofku wuxuu akhriyaa 10 saacadood iyo 42 daqiiqo markaad celcelisid ugu yaraan qofka saacad iyo waliba waxbuu maalinkii wax akhrinaya markaad celcelisid marka bal tilmaan qof la oran karayo maalinkiiba hal saac buu fadhiyaa oo wax akhriya horumar weyn buu samayn karaa marka sidaas bay waa ka aragtay marka la eego yani nolosha caadiga ee maanta ay ku jiraan dawladaha waxay ka mid tahay dhaqaalahooda iyo awoodooda ay aad ka u badan tahay waxa lambar 2 ku jira yiraahdeen Thailand baa ku jirta Thailand waxay akhriyaan 9 saac iyo 24 daqiiqo ayuu qofku akhriyaa toddobaadkii weeyaan iyaga laftooda xoogaa way ku dhow yihiin sax China ku soo xigo 8 saacadood buu akhrinta China adduunka wuxuu ka sameeyay waxaan dareemi karaynaa dawlad iska soo gashay xagga oo bulshadeedu wax akhrido oo horumar samayso oo haddana gadaal fadhida ay ma jirto waxbaad akhriyaysaa dunidii way arkaysaa inaad ugu horeyso dhan walbana inaad dhaqaalaha weyn ugu horeyso dhanka military weyn ugu horeyso dhanka siyaasadeed weyn ugu horeyso dhan walba bulshadii oo ka horeynaysa bulshooyinka kale way ka horeynaysaa marka dawladda ugu soo horeeyay cilmi-baaristii u dambeeyay ay ku soo dareen kuwaas ayaa ka mid ah oo hadda waana wax sirri ah nolosha caadiga ah oo aragnay dunida xagga hore ay ku jiraan